بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan ku sugannahay Bilan Media oo aad aragteen tababaro inaan ayaamahan anagu wadnay caasimadda Soomaaliya magaalada Muqdisho runtii waa inspiration waa gabdho Soomaaliyeed oo gobolada kala duwan istijada Soomaaliya ka yimaadeen oo la barayo mobile journalism wax la yiraahdo oo meelo badan aan kaga soo shaqeeyay meelo badan dad aan ku soo tababaray marka tababarada ayaama badan ay socdeen waxyaabo badan ay barteen marka sababta maanta aan ugu imid tababarada mid kamid ah waxay tahay qalabkii aan u dalabnay ayaa u yimid oo qalabka ugu dambeeya oo mobile-ka oo lagu shaqeeyo tusaale ahaan waxaan u keenay oo maanta aan ku wareejinaynaa DJI Osmo oo ah dongle kan oo kala ah kulli aan tusi doono mar intay socoto maxaa la yiraahdaa tababarkan uu socdo waa tababar muhiim ah oo practical ah isla markaana theory waxaan kala tusay waxyaalo oo marka mobile journalism ah tahay waxa hadda adduunka lagu shaqeeyo u badan tahay inaad haysatid booshatan oo kala agrafay ku suran tahay waa laga tagay marka waagi camera weyn la qaadan jiray waa laga tagay waagi nolol waaweyn la shiri jiray nololkii xataa waa kuwan u diyaarsan yihiin tripodkii waa kan u diyaarsan yahay isagoo yar waa kan u diyaarsan yahay meel walba yaala waxaan kaloo haynaa qofka duu underwater biyo hoostooda mobile journalism u yaala haddii gaari ku socdo u yaala marka kaamerooyinkii waa laga maarmay gabdhahana runtii ma ahan gabdhaha Soomaaliyeed kaliya inspiration inay noqdeen anagay noo noqdeen qoraalladooda BBC Guardian New York Times meelo badan ayaa lagu soo qoray waxyaabo badan oo related ku ah ugu dambeysay abaaraha hadda ayaa Guardian lagu soo qoray aan soo share gareyn doonaa marka sababtan u sameeyna waxay tahay waxaan doonaynaa gabdho iyagoo kala inspiration oo Soomaaliya inay soo baxaan oo perception-ka oo bulshada ay bedelaan marka maanta marka u nimid balkan aan keenay bahladan aad ay muhiim u yihiin kan ayaa ku dhex jira saa ku aragtaan boorsadaan la yimaadaa waa furmaa hadda gabadha barnaamijka gabdho kaliya jooga meeshan iyo nin kale oo barnaamijka wax igala qayb qaadanaya oo soo qoray barnaamijka marka kan oo kale ayay haysataa marka haddii ay journalist ay tahay telefoonkeeda labada telefoon intuu yaala mid ay ku shaqeysay mid kala saan oo kale ah way soo qaadanaysaa kan ay ku dhajinaysaa dab ahaan koronto ahaan ayuu ku dhabeeyaa markay saan ugu dhufato broadcast ka galaysa ama live ka hadda iga daawanaysaan soo report bay galaysaa ama waxay ka soo galaysaa Bilan Media oo gabdhaha haddii aragtaan Bilan Media waa sii share gareynaysaan oo waa soconaysaan marka haddii ay doonayso marka inay samayso balkan by the way waxa la socda ka kaliya ma ahan waxa la socda wuxuu noqdaa a tripod uu noqdaa halkan looga xiraa dhulka la dhigaa kuwana within 1 minute oo aan ku xiro bahalkan ayaan ku xirayaa oo separate ka sidaan oo kale uga baxsan kan aan ku xirayaa 1 minute markaan ku xiro kan waxaan sameynayaa nalalkii aan saan ugu xirayaa aad u jeedaan marka tababarkan qaybtu waxay ka mid tahay oo gabdhaha Bilan ay ku sameynayaan mobile journalism oo waxyaabaha muhiimka ah ee ay ku baranayaan marka lighting-ka hadda natural lighting ayaan isticmaalay oo ah magaalada Muqdisho qoraxdeedii ayaa natural light ah laakiin habeen haday ahaan lahayd gabdhaha waxay isticmaali lahayn interview ay sameynayaan kan oo kale ayay within 1 minute nalal waaweyn meel lagu xiro jirto kana USB-ga iyo computer-ka ayaa marka loogu sameeyaa markay saan sameeyaan kan ay soo qaadayaan iPhone-kooda ama telefoon-kooda kan intay any telefoon ku shaqeeyo any channel ku shaqeeyo intay gelinayaan broadcast waxa kaloon u yimid oo la socda alaabtan ayaa u timid alaabtan waa very important waxa la yiraahdaa Rode wuxuu sameeyaa a professional wireless wuxuu sameeyaa a broadcasting marka meeshan ka hadlimayno TikTok ka hadlimayno waxaan ka hadlaynaa professional journalism ayaan ka hadlaynaa oo training qaatay oo waqti badan soo tababaray bilowyin ay tababar ku jireen gabdhahan marka journalist qofka lagu leeyahay ma ahan intuu iPhone soo gato meel soo fadhiisto uu ka qayliyo ka hadla ma ahan gabdhahan article qoran article hadda ugu dambeeyay gabadh kamid ay ku qortay Guardian ay soo shaqeeyay wada yaabaysan say qoreen markay saan u sameeyaan qofka two options ayuu leeyahay marka haddii aad tahay qof oo vlog duubayo oo lagu jeedin kan ay soo qabsanaysa gabadha ku xiranaysa waa hadlaysa maanta oo dhan iyadoo wireless or distance kale laakiin haddii as a professional a journalist ay tahay waxay u baahan tahay in qofka ay wareysanayso aysan ku dhejinin waxba oo ay u sameeyso in waxa la socda alaabtan ayaa la socota waad u jeedaan as a professional journalism kan ayaa kan ku xirmaya marka roorayo aad u jeedaan ayaa halkan kaga xirmaya kan waa la qarinaya marka ma doonaysid as a professional a mobile journalist ma doonaysid
in cable halkan uu yaallo wax halkan uu yaallo baalkan ayaa la soo qaadaa intaysan ugu dhijinaysa waxay ka ilaalinaysaa in ay dabeelaha ay taabtaan ama shaatiga ama dharka ay wadato gabadha marka uu taabto kanna waa la qarinayaa hoosaa la gelinaya marka waxaad noqonaysaa professionalism gabadhii hadday banaanka u baxdo gaari ay la socoto ma ahan in telefoonkeeda iPhone-ka aysan usoo qabato oo sidan ay tiraahdo ay la warwareegto u dhaqdhaqaaqo gaariga waxaa la socda oo aan keenay labadan underwater lagu isticmaal kan ayaa lagu dhijinaya gaariga kan ayaa mar walba kuu duubaya markaa kan ayaa soo qadanaysa oo kuu duubayaa shots kala duwan ayuu kuu duubaya waxaa kaloo la socda oo aan ku tababarnay u keenay drone oo sidaan oo kale ah oo aan tusaya hadda drone-kana gabdhaha laba drone ayaa u taalla oo aan u keennay waa hard case ayay ku jirta waana very very sensitive drone-adan DJI modeladii ugu dambeeyey xitaa waxay leedahay landing gears ayay leedahay kan helicopter ahaan meesha usoo degaysay qalabkooda u xiran yihiin xitaa uma baahna inay ku xirta markaa maxaa la yidhaahdaa baalasha ay ku duusho inay ka furto uma baahna rabarkan ayaa saa loo geliyaa kor iyo hoos intaa looga geliyaa isla markiina 3 battery waxaysa mid ku xiran labadan oo spare ah waayo kan 35 to 40 minutes ayuu ku socdaa marka waxay samaynaysaa 10 minutes oo vlog waxay samaynaysaa wax walba iyo controlkii kanna waa u yaala gabdhaha Bilan Media oo runtii media Soomaaliya aad u bedelay marka maanta waxaan kaloo baraynaa oo aan u nimaadnay apart from hardware-ka aan u keenay waxaan baraynaa sida action qofku u sameeyo siduu u socdo siduu u duubayo sababtoo ah markaad tahay mobile journalism oo wejigaaga la arkayo way ka duwan tahay markaan la arkayo markaan hadda blog aan duubayo waan iska soconayaa waxaan leeyahay anigoo ah Cabdinaas Ismaaciil oo ka socda Bilan Media san ayaan leeyahay laakiin marka adigu lagu arkayo waxaa lagaga doonayaa as a journalist in aad samaysid dhaqdhaqaaqa xataa inuu ahaado professional inaad qaalisid maaha qofku waa inaad siisaa fursad markaas uu ku hadlo oo qoraalana aad samaysataa oo inspirational waxaa samaysataa marka maxaad u baahan tahay mar walba waxaad u baahan tahay as a professional journalism in aad wadatid waraaq iyo qalin waxaa qortid note ma ahan interview oo dhan maaha waxaad u baahan tahay wax yar aad qoranayso kadibna waxaanu markaan qaybino laatan kadib boorsadana isaan u wataan laptopkooda ay wataan uma baahna wax kale la sameeyo laptop wax bay ku qoranayaan waayo laptop waxaa noogu jira teleefoonadan waxaa noogu jira software lagu editgarin lahaa lagu qaadi lahaa wax walba lagu samayn lahaa marka waxaan rabaa gabdhaha way farabadan yihiin halkan la fadhiyaan Bilan Media ee magaalada Muqdisho ay joogaan waxaan rabaa in aan u micneeyo 5 ethics of a mobile journalism marka journalistaha caadiga ah waa laga baahan yahay waa iyaga mobile journalism kaliya ma aha waa journalistihii la yaqaanay oo shaqeeyay marka journalista u malaynayno qof iPhone intuu soo gatay kanoo kala ah yiri wariye hebel wariyaha waa professional sida dhakhtarkoo kale sida lawyerkoo kale sida ma aragtay dadka professionka bartoo kala ah waayo ma ahan kaliya in qof uu yimaado hadda xilligan la joogno waxaan ku duubayaa lighting ka soo waxaan ku duubayaa codkayga oo caadiga ayaan ku duubaya marka saan u qaylo maqlaysan laakiin uma baahnaan lahayn haddii kan intaan soo qaato inta aan ku dhegsado ama aan qarigan dhigo codka wuxuu noqon lahaa mid aad uga duwan kuwaasna gabdhaha waan ku sameynay iyagoo sameynayna waa idiin soo deynay kuwa kalena waa idiin soo deynay marka waxaan rabaa gabdhaha inaan u sheego haddii aad tahay professional journalism qabiil ma lihid waddan ma lihid wax ma lihid waxaa lagaa rabaa inaad ahaatid dhexdhexaad marba u shaqeeyo haddaad tahay professional journalism ka hadli mayno waxyaalaha meela ka arag marka shan waxyaalaha laga fahmaysa 5 things haddii aad samaysid waxaa noqonaysaa qof professionkiisa ka soo baxa waa iska fahmi karaa waddankeena journalist in lagu noqdo especially female ama dhidig ah ku tahay oo waxaad u dhibada marka waxaa laga doonayaa 5 things truth and accuracy runta inaad sheegtid waxana sax ay say tahay aad u sheegtaa journalist cannot always guarantee truth marka qofka journalist ah guarantee ka dhigi maayo marnaba wax uu sheegay inay run ay tahay boqolkiiba boqol ma dhihi karo laakiin waxaa lagu leeyahay fact wixii run ah ee shaqayn kara iska day ahaw a principal journalist ahaw principal maxaa laga wadaa maanta haddii qofku ila soo xiriiro uu yidhaahdo waxaan doonayaa reer hebel ama siyaasi hebel ii dhibaatee you're not principal journalist principal journalist lacagna ma qaato qofna wax uu sameeyo wuxuu ku socdaa wixii soo dhaca wuxuu difaacaa qofkii ma aragtay loo baahan la difaaco tan ku xigta independence madax banaani haddii maanta aadan madax banaanayn journalista inaad noqoto dhib ayay kugu noqonaysaa sababtoo ah social media hadday noqoto platform hadday noqoto traditional journalism oo ay ka mid tahay radio iyo wireless iyo TV waxay ahaataba hadday noqoto waxaa u baahan tahay independent in aad noqotid sidaad noqonaysaa
war kasoo yimaada xitaa dad kale haday ku arkaan qofkaas in aad ka siyaasay ray duwan tahay as a journalist waa in aad soo gudbisaa waxa kale oo raacda fairness and impartiality tan ka hadlo qof kasta waa inaad fair u ahaataa siyaasadda Soomaaliya waa wax aad u xiiso badan yaa lagu dhihin company aan u shaqeeyo madaxweyne hebel buu taageero ka soo jeedaa lagu dhihin waa fairness waxay tahay qofkaas dilay gadanay waa la saftaa hadduu gariyo ilahay waa la saftaa mar walba tan kale humanity qofka waxa la doonayaa haddii meelaha waddankeena abaara badan ayaa ka jira journalist abaar hadduu tago meel abaar ay ka jirto haddii oo barfuunka iyo dharkii ugu dambeeyey oo adduunka aan soo xirto oo dadkii gaajaysan hortooda oo ma aragtay cake aan ku cuno ama shaah aan ku cabo ama xanjo aan ku cuno waxaa iga lumaysaa as a journalism oo luminaya humanity bani aadamnimadu iga lumaysa marka qofka journalist waxaa lagu baahan yahay ethigiisa inuu humanity ugu jiro iyo kan ugu dambeynaa accountability waxaa fashid adaa mas-uulka tusaale ahaan wax qalad ah oo been abuur ah haddaad soo bandhigtid haddii aadan caddayn adayn waa in aad ka bixisaa raaligelin aad ka bixisaa marka casharka waa aad u fara badan yahay runtiina I'm very proud gabdhahan inaan waqti aad u dheer aan isla qaadano oo aan tababaro oo aan tuso waxyaalo iyagana ay ku faa'iideen gabdhahan regionada kala duwan ay ka yimaadeen runtiina ma ahan kaliya gabdha la tababaro lagu kala dhaqaaqay artikaladooda New York Times BBC meel walba kii ugu dambeeyay hadda gabadhii qortay kii ugu dambeeyay gabadhinta fadhisaa qortay kulley gabdhaha mar dhawaad arkaysaan marka Bilan Media la socda especially hadda gabar Soomaali ah tahay waddankan aan ku noolnahay it's not easy to be a female and to be a journalist laakiin inspiration waxay noqonaysaa wax walba oo wiil Soomaaliyeed uu sameyn karo idinkana waa sameyn kartaan that's why anigu gabdhaan dhalay laba gabdhoodaan dhalay I'm very proud of them inay high achievers noqdaan laakiin marka Soomaaliya ku nooshahay Soomaaliya tahay female tahay xaalku wuxuu isku noqonaya in loo sahlo laakiin gabdhahan heerka gaareen maanta New York Times iyo Guardian iyo BBC iyo Twitterada adduunka lagu soo qoro waa wax aad u weyn marka muhiimaddu waxay tahay qalabkan u keenno aan ku wareejino aan ku tababarno kadibna shaqooyinku loo arkaysa marka Bilan Media marka waxaan rabaa Bilan inaan tuso ila soo socdo gabar ninkii la jooga waa naga tagay gabdhaha kaliya la jooga waa kan marka magacooda waa kan anigu waad ogtihiin follow iyo like iyo share weligay ma samayn laakiin waa the first time in my life aan iri Bilan Media social media Twitterka ka raadiye share garay arka especially da gabar tahay Soomaaliya dibadda ay joogtid alaabtan fiiri ma aan haysid waxay tahay waa inspiration way gabdhaha waxaad aragteen aaskay sameeyay actually gabadhan waa gabdhaha kamid ah gabadha duubaysa way gabadhan hadda oo isla lagu sameeyay marka everything oo meeshan ku yaalo waa females waa gabdho way hadda ka horna barnaamij isla sameeyay hadana barnaamij kale isla sameyn doona waa the happiest marka gabdho Soomaali ah oo professional ku dhex jirtay is very very happy day oo waqtiga marka hadda intaasaan rabay inaan soo gudbiyo marka ka warqaba Bilan Media arka social media raac article-odan ana idin soo share gareynayo soo report idin soo share gareynaya oo aan leeyahay arka article ugu dambeeyay kii BBC laga hadlay Twitterka meel walba marka wax bay doonaan note-ka gabdhaha waa ku dhex jira waa qalabka intuu yaala marka ani iyagu waxaan soo qabsanay the first thing you do note waa inaad haysataan baa idin si kastoo technology soo bedeshay camera ma taalo meeshaan absolutely no camera qof walba wuxuu haystaa oo loo keenay waad ujeedaan alaabtan itus alaabtaas waa kan iPhone kan iyo Apple kan ay ku shaqeeyaan oo waxyaalo iskabtay qortaan laakiin editka iyo sida wax loo sameeyo iyo sida ay design gareeyaan wax walba through iPhone kan kulli aan ku wada haysanaan isticmaalna marka kaamirooyinkii waaweynaa iyo cable-kii farabadnaa iyo marka inaan ku dhahama amaan laakiin waxyaalo badan waa sabarka Soomaa ya haye inspiration ka gabdhaha ay sameeyeen hadda oo aad aragtid qalabkan la keenay qoraalada aad qorteen waxyaabaha ugu xisaabadna maxay ahayd soo waa maadsan tahay adiga iyo saaxiibada kugu xiran iyo bahda Bilan Media adduunka maanta casriga noqonaya xadaarada iyo baxnimada dunida wariyaasha ma jaan qaadayaan waxaa laga yaabaa waqti la soo maray in kaamirooyin isticmaali jiray laakiin maanta waxaa adduunka isku bedelayaa mobile journalism oo in qofka mobilekan uu ku shaqeeyo oo weliba ayadoo ay ku jirto 4K ayadoo laga heli karo HD asagoo ah oo camera muuqaalada Bilan Media ee page-keeda inta badan lagu soo daabaco waxa lagu duubo waa mobilekan hadda sheekooyin waxaan soo sameynay ilaa 6 sheeko dadka markaa u tagno oo aan isku rakibno tripodkii iyo mobilekii microphone-kii u xirno dadka qaar way yaabayaan
waxaa ugu dambeysay wasaaradda ganacsiga oo ah kasoo qaadna wareysi professional aad tihiin dheheen saana ka fudud waxaad yarka inta saga qaadnay boorsadaad yarta waa isku rakibane automatic qofki waa ka duubaysaa culays badan kuuma noqonayso meelaha ciidanka iyo meelaha qaar meesha u baahata waxa u duubi kartaa marka casri badan marka waxyaabaha falcelinta hadda waxaa shaqeynaynaa ilaa 2 bilood meelahaas oo kale falcelinta ugu badan dadka kala kulmayna waxay tahay inay jecleysanayaan waxaan socdo sababtoo ah qof oo mobile wax ku duubaayo oo microphone ku xiraayo tripod ku xiriirinayo wax oo waxay ahayd la yaab leh dadku way arkaan iyadoo mobile qof wax ku duubaayo Snapchat TikTok wax isaga duubaayo laakiin si professional ah qofka wax ku cusub ay ku noqoto dadkeena in badan oo xadaarada la socotana way la qabsadeen laakiin dadka inta badan way mahadinayaan way jecleysanayaan inay mobile wax looga duubo videoyada ku soo baxeen oo hadda bilan page-keeda saaran hadda aragtiin waa very professional camera lagu soo duubo in mobile lagu soo duubo qof ma taha kala saari kara bas sababtoo ah wixii mobile-ka uga baahneed ka badan inta ku jiro marka dadka oo mobile-ladan sitaan oo kale wax badan ay geli karaan hada qola ugu dambeysay waxay dhaheen iPhone waa wadanaa laakiin mana qaana micnii sawira wax ugu fiican aan ku samayn karna sawirna isaga qaado laakiin wax walba ku jira software ku jira xataa sameecad wax lagu duubo ku jiro dadkiisa marka qaar mobile-ka ka qaalisan tahay soo marka dadkana aad ula jaanqaadaya aniga waxaan qabaa cabsi ah marmar qaarna horumar ah in 3 sano 4 sano soo socda doo waxaan uu sameeyo saameyn xoog leh in camera garab lagu qaado laga maarmi doonto oo qof walba noqon doono mobile-kan inuu meel kasta ku isticmaalo thank you asxaabay gabdhahan waxyaalaha aan aad kula dhacay inspiration ka sokow waxay noqonaysaa waan ognahay waqti casri ayaa lagu jiraa oo social media TikTok waxaas oo kale gabdhahan waxay inspiration noqonayaan dadka TikTok soo gala oo runtii aan aad ka loogu bogin oo siday wax u sameynayaan oo gabdhaha ilaan diin iyo dhaqan ayaan leenahay marka gabdhahan waxay u noqdeen iyagoo oo diintoodii iyo dhaqankooda ku dhagan maanta inspiration aad weyn noqday marka gabdhaha TikTok ku jira iyo uma diidani hal iska isticmaal dhalinyarada laakiin waxyaalo waxay inspiration u noqonayaan in ay war fiican sameyn karaan wax qurux badan ay soo gudbin karaan waqti la gelin karo laakiin iPhone aan haystaa TikTok aan galay anoo qaabana iska soo duubaya dad baan ku mashquulaya uma baahan gabdhaha ku mashquulaan intay joogaan artikalada ay qoraan ana laftigeyga anoo macallin ah waqti dheer aad ula yaab runtii aad ula dhacay aad ugu faraxsanahay marka bilan media tababaradeeda way socdeen hadda kaliya ma ahan bishii hore dhowr maalmood ayaan tababaro ka sameynay hadda tababarku wuxuu noqonayaa drone operators ay isugu xiri lahaayeen telefoonka droonka u edit gareyn lahayn marka wax kale looma isticmaalo telefoonkana isticmaalaan waaba mobile journalism oo wax casri oo hadda adduunka ku jira oo meelo badan laga sameynayo waxaana insha allah sii samayn doona in jaamacadaha oo media laga barta aan tago ama koorsooyinka waxaan oo dhanna iskaa wax u qabsa waaye ما أهان سومالي واحد كجعله هو هبل محو بجاج أخراعي أو بجاج أنا صراعي ما تبايد وين ومورنا يعني والله هن كان بروجكت وين بوسوقات نو وإسكا وقف صوتها برهبت قبلنا نركي آرتيكل نيويورك تايمز جارديان المسنجر يكون صورته أنا جا وحيل هذا هاي مع عبد الناصر بمعنى وحكبر تاسنا ومهمة وين أو ودن كنا لجوه المرينا مركب وإذا سلامة يا تريننج كاس كسي ودنا أنت سوى حيد بلن ميديا هلا راعوا قبلها سبيشال كور غبان هلا كوحي سميان إذن كاركتونا وما شنتهن وإن سلامة وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.